السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meelaha aan wax ka daawado kala socdo dadka aan markaas xiiseeyo waxyaabo ay soo gudbiyaan waxa kamid ah Facebook, TikTok iyo sidoo kale YouTube. balse ma arko waxa aan danaynayo maahane wax kale. sida inaan arko naga qaqaawan, sida inaan arko heesaha, sida inaan arko maalayacniga iyo dadka buunbuuniya qabiilada iyo waxyaabaha la midka ah. haddaba muuqaalkan ayaan doonayaa maanta inaan kugu sheego sababta aan u arkin waxyaabaha aan doonaynin. dad badan ayaa aaminsan in uu Facebook iyo sidoo kale TikTok ay fasahaadin ku sameynayaan mar walbana ay soo hordhigayaan waxyaabo aysan danaynin. balse waxaan rabaa muuqaalkan inaan kugu sheego waxyaabaha sababaya muuqaal aan danaynin inaad mar walba aad aragto. waxaa jira wax la yiraahdo algorithm. dhammaan qaybaha kala duwan ee baraha bulshada waxay ku beesgareysan inay ku shaqeeyaan wax loo yaqaan algorithm. haddaba algorithmka qaabka uu shaqeeyo waxa weeye in haddii muuqaal aad daawato marka aad bilowdo daawashada muuqaalka ayay bilaabanaysaa shaqada algorithm u xil saaran kaliya adiga iyo waliba waxyaabaha aad xiiseynayso oo marka horeba lagu weydiin doono markii aad baraha bulshada ku soo biirayso maxaad jeceshahay inaad halkan ka aragto. dad tiraahdo teknolojiyadan jeclahay, dad tiraahdo siyaasadan jeclahay, dad tiraahdo ciyaarahan jeclahay, dhammaan qaybaha kala duwan oo markii hore aad favorite-ka ka soo dhigatay oo aad soo dooratay ayaa aad lagu dhaxgelin doonaa. balse haddii aadan dooran maxaa dhacaya? algoritmka wuxuu wax ka baran doonaa waxyaabaha aad daawanayso. marka aad bilowdo daawashada muuqaal wuxuu bilaaban doonaa shaqadiisa isagoo fiirinaya waqtiga daawato, inta aad ku hakatay, sida aad u ceshatay, inaad like saartay, inaad comment ka bixiday, dhammaan falgalada kala duwan oo aad la samayso muuqaaladaas, poostiyadaas iyo waxyaabaha kala duwan oo markaas aad ka daawanayso baraha bulshada. halka ayuu ka go'aansanayaa ama ka ogaanayaa waxyaabaha aad xiisayso. tusaale, hadda ayaa daawatay muuqaalku wuxuu soconayay 10 daqiiqo, 5 daqiiqo kamid ayaa daawatay. waa isaga baxday baraha bulshada ama Facebook ka daawo ama TikTok ka daawo ama YouTube ka daawo. haddii aad ku soo laabato saacado kadib muuqaalkii aad daawatay muuqaalo la xiriira ayaa lagu soo hordhigi doonaa. waxa sababaya ayaa ah in algorithmku uu ku fahmay muuqaalada caynkan oo kale inaad xiisaydo. haddaba haddii aad ka mid tahay dadka yiraahdo Facebook markaan soo galo waxaan arkaa naga qaqaawan, sidoo kale TikTok markaan soo galo waxaan arkaa fasahaadin iyo meelo waxyaabo aan ku raalihin ayaa kala kulmaa. jawaabta aan ku haya ayaa ah in aad adigu mas'uul ka tahay waxyaabaha ka daawanaysa baraha bulshada. haddii aadan muuqaalkan ka helin waxaa jirto qayb la yiraahdo not interested oo macnaheedu tahay qaybahani ama muuqaalada caynkan oo kale ma xiiseeyo. haddii dhowr muuqaal oo caynkan oo kale ama qaabka aadan doonaynin ah aad not interested ahayd marnaba muuqaalada mid lagu soo hordhigi doono. sidoo kale muuqaalada aad xiiseedo haddaad baraha bulshada inta ka sii garaydo oo aad ka raadiso meelaha la soo dhigan aad toos u abaarto aad mar walba daawato Facebook haddii ahaato markaa soo gasho muuqaaladii kuwa la xiriira, kuwa lamida, kuwa ku faa'iideynaya, kuwa waxtar leh, kuwa aad danaynaysa lagu soo hordhigi doonaa. maxay tahay haddaba hadafka ugu weyn ay ka leeyihiin shirkadahan baraha bulshada iska leh inay adeegsadaan algorithmka si ay mar walba kuu soo hordhigaan muuqaalo adiga aad danaynayso? hadafka ugu weyn oo ay leeyihiin ayaa ah in aad sii joogto halkaa oo aadan marnaba ka bixin. waa sababta lagu eedeeyo baraha bulshada in ay yihiin meel markaasi dadka aad waqti uga lumisa gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. haddaba muuqaalka waxaan kusoo gabagabeynayaa naftaada adiga ayaa ka mas'uula, waxa aad daawatana adiga ayaa ka mas'uula. teknolojiyadda iyo dhammaan baraha bulshada kala duwanba waa seef laba af leh, qaabkaad uga faa'iidaysato ayay ku xiran tahay. haddii aad go'aansato inaad maalayacni ka daawato, la qosol aad ka daawato, mar walba aad soo gashay la qosol ayaad arki doontaa, waqtigaagana la qosol ayuu ku lumi doonaa. balse haddii aad go'aansato inaad ka daawato waxyaabaha ku anfacaya, inaad koorsooyin ka barato, in aad noloshaada ka hormariso, in aad muxaadaro ka dhigaysato, in aad adduunkaaga iyo aakhiradaada wax anfacaya aad u kaalmaysato, dhammaan waad ka helaysaa. haddaba seefta labada af leh, afka aad dooranaysid adiga ayaa mas'uulka ah. waxaan rajaynayaa maanta kadib in aadan dhihi doonin social mediaha ayaa waqtiga aad iga lumiya oo mar walbana isoo hordhiga waxyaabo nafta iyo shaydaanku ay jecel yihiin oo noloshayda ku ridaya ama ku ridaya wadada qaldan iyo god mugdi ah. adiga ayaa ka mas'uula noloshaada. waxaan rajaynayaa wax inaad muuqaalkan ka faa'iiday. haddii uu jiro qof ka mid ah asxaabtaada oo aad og tahay inuu mar walba qiilkan uu samaysto waqtina uu ku lumiyo baraha bulshada u sii share gareey, adigana ka mid noqo asxaabta nagu soo biira, muuqaalka la gareeya. intan muuqaalka xay ku kulmi doono waxaan ka tegayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.